halkan waxaan maanta idinku soo gudbin doonaa 4 xayawaan oo khatar badan isla markaana aad ku farxi doonto marka aad ogaato in aysan dunidan ku noolayn. Titanuf waa micnaheedu waxa weeyaan masaskii waaweynaa. Maskan ayaa ah mid uu miisaankiisu aad u culus yahay, dhererkiisuna gaadho ilaa 12 mitir. Waxa uu maskani ku noolaaday Koonfurta Ameerika 850 sano oo milyan ka hor casrigii Pliocene-yada. xayawaankan ayaa lagu tilmaamaa in uu ahaa mid aad u halis badan. baaritaano qaar ah oo lagu sameeyay ayaa waxay qeexayaan in uu maskani inta badan cuni jiray xamaaratooyinka. sidoo kale waxa uu khatar ba'an ku ahaa xayawaano kale oo badan. dibqalooca Crichtonecisa. dibqaloocan ayaa waxa uu ku caan noqday xajmigiisa oo ahaa mid aad u weyn. miisaankiisa ayaa waxa uu gaadhayay 15 kilogram. waxa uu dhererkiisu gaadhayay ku dhawaad 1 mitir. haddaba haatan isbarbardhig ka cabsashada aad ka cabsato dibqaloocaasi iyo baranbarada. waxa uu ugaadha ku leen jiray awoodiisaasi weyn iyo suntiisa cajiibka ah ee uu watay ilaa uu beerkooda kulul ka cuno. waxa la yiraahdaa xayawaankan waxa uu dunida ka dabargo'ay muddo 318 milyan oo sano ka hor. waqtigaasi oksijiinku waxa uu ahaa mid aad u sareeya, arrinkaasi oo ka caawiyay in uu dibqaloocan sidaasi u weynaado. Antilodon waxay ku caan yihiin doofaarkii jaxiimka. haddaba xayawaankan ayaa dhererkiisu waxa uu gaadhayay ilaa 1.8 cm, xagga uu miisaankiisu ahaa in ka badan 500 oo kilogram. balse xajmiga caqligiisa ayaa waxa uu la ekaa inta tufaaxa. waxa uu lahaa habdhaqan cadaawadeed oo aad u foolxun, arrinkaasi oo keenay in uu ka mid noqdo xayawaanada ugu khatarta badnaa ee waqtigaasi. waxaa la sheegaa in uu si gaar ah dadka u ugaadhsan jiray. markoodii u dambeysay ay dunida ku noolaayeen ayaa waxay ahayd ku dhawaad 25 milyan oo sano ka hor. shimbirihii cabsida. casrigan aynu joogno waxaynu arki karnaa digaagadaha oo ah kuwa yaryar oo aad u fudfudud, taasi oo ah cagsiga shimbirkaasi waqtigaasi jiri jiray, iyada oo uu dhererkiisu gaadhi jiray ilaa 2 mitir iyo badh. waxa ay ahayd mid awood u leh inay cunto xayawaanaadka, iyada oo awood u lahayd in ay cunto dameer dhammaystiran si bilaa dhib ah oo aan mushkiladi ku jirin. waxayna ku noolaan jireen Koonfurta Ameerika. haddaba daawadayaal, intaasi ayuu ku egyahay maanta barnaamijkeenu. aad baanad ugu mahadsantihiin daawashadiina. haddii aad ku cusub tahay channelkeena